Maxbuub Daahir Xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool degmada Buur-Xakaba isla markaasina waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku howlan caawinta dadka danyarka ah waxaana uu ka shaqeeyaa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgasha degmada Buur-Xakaba. Hooyo Aamino Cali Isaaq oo dhawaan laga baahiyay telefishinka 5TV ayaa waxa uu u soo wakiishay wariyaha telefishinka 5TV deeq raashin ah. Sidoo kale Maxbuub ayaa ballan qaaday in uu bil kasta kafaalo qaadi doono nolosha hooyo Aamino. Waxa uuna sidoo kale dhalinyarada iyo dadka hantida haysta ugu baaqay in ay caawiyaan hooyo Aamino Cali Isaaq. Bismillahirrahmanirrahiim. Bulshada Soomaaliyeed oo loogu yaqiinay inay dadka tabaalaysan ama dhibaataysan ay caawiyaan ayaan maanta waxaan soo booqanay xogaa yar oo aan badnayn hooyo Aamino aan soo gaarsiinay saliid bur joodari ay ku seexato maadaama aysan haysan meel ay seexato waxa ay ku seexato intaas waxay ahayd waa in yar oo ay ku sii fariisato. Bulshada Soomaaliyeed ayaa wali waxaan ka sugaynaa inay gargaarka iska soo dabaridaan. Walaalkeena Maxbuub Daahir Xuseen ayaa soo gaarsiiyay intan yar waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu maaragtay ajar iyo xasanaad uu ka siiyo. Bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay intan in ka badan ay maaragtay hooyo Aamino ay soo gaarsiiyaan. Muddo yar ka hor ma haysan joodari ay ku seexato waxay seexanaysay dhulka maqaar oo lo ay ku seexanaysay marka sidaas daraadeed hadda waxaan u keenay joodari wali gargaarka uu iska soo daba dhacayaa insha Allah cidii wax ku darsan karto hadii Ilaahay idmo inay maaragtay maamo Aamino ay soo gaarsiiyaan oo bilaa Xuseen Cali Geesay 5TV